بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم مقعيق وسعيد عبد الله قياد كسو دواada cashirkeen imtixaanaha ahaa ee CCNA-da ahaa maanta waxaan kaga hadli doonaa hadii ilaahay dhaado waxyaalaha ugu dhibta badan ee ardayda dhiba oo ah ma garanaysaa uu kamid yahay subnetting ama qaybta ugu dhibta badan isagoo uu ku jiro qualification kaygu aniga dad ayaa ay weydiiyay qualification kaygu waxa weeye MCSE iyo ma garanaysaa Bachelor of Computer Engineering iyo CCNA CCNB hadda wadadeedii almost gabagaba ah marka hadii ilaahay yiraahdo kusoo dhawaada mar labaad Awdal College of Communication oo school hadda in la abaabulo la rabo wadankii hadii ilaahay yiraahdo iyo subnetting ko qaybtiisii koowaad hadii ilaahay yiraahdo marka sidoo arkaysaan maanta bishii waa bishii afartii bishii koobaad 2012 magacayguna waa Saad Abdullah Qiyad waa ku soo dhawaada walaalayaal marka waxaan kaga hadli doonaa maanta qaybta koobaad saan hore u sheegnay subnetting-ku iyo IP address-ka okay marka waxaan oranaynaa ilaan subnetting wuxuu ka yimid IP address-ka moogtay marka waxaan oranaynaa maanta war IP address oo maxaa tahay horta IP address oo maxaa tahay horta marka what is the IP address oo maxaa tahay hadaba overview haddaan naga siiyo ama guud ahaan haddii aan idin dul maro IP address ku waxa weeyaan waa internet protocol IP dan waa ayda internet bay u taala oo aad arkaysaan P duna waxay u taala protocol waana wuxuu ku shaqeeyaa layer 3ga way qoran tahay hoos ayaan u gali doonaa laakiin guud ahaan baan overview naga siinaya macnaheedu kooban waa internet protocol ayaa leeyahay wuxuuna ka dhex shaqeeyaa internetka laftiisa ama oo application marka aan joognay TCP/IP-ga internetku waxa uu ahaa layerka oo ma garanaysaa saddexaad ayuu ahaa marka aan joogno OSI modelkan halkan network base ku bedeshaa oo layerka saddexaad una iyaduna sorry TCP-ga marka joognay layerka labaad baa haban maleynaya TCP-ga OSI modelkan layerka saddexaad ayuu ahaa laakiin waa isla halkii waa internet protocol iyaa la yiraahdaa IP address-ka marka waxa weeyin waa logical address dhinaca kale marka laga eego wax la taaban karo ma aha haddana waa logical address oo waa number ma garanaysaa device-yada u kala gudba oo na loo doortay sababaha loogu doortayna halkan aan ka sheegaynaa marka IP address-ku waxa weeye su'aashan aan ka jawaabaynaa moogta what is IP address ba maxaa la yiraahdaa marka IP address-ka waxa la yiraahdaa is an internet protocol waa internet protocol IP haddaad aragtaan waxaad xasuusanaysaan internet protocol inuu yaalo ayaduna internet P duna protocol kaas oo kaas oo ku shaqeeya ama ku dhex shaqeeya in the internet layerka oo in TCP/IP-ga markaan joognay wada xasuusanaysaan layerka labaad buu ahaa in marka la joogo ma aragtay in OSI modelkana wuxuu ahaa ma garanaysaa network layerka saddexaad ayuu ahaa laakiin labadana waa isku shaqo isku function bay qabtaan waa isku shaqo sababtuna waxay tahay loo doortay of disability kartidiisa to connect together oo isku xidhayo network of a different sizes network oo kala yar for example IP address-yada oo subnetting lagu sameeyay oo la kala yaryareeyay ama ma garanaysaa different systems ama systemyo oo device kala gaara of these different types oo ma garanaysaa siyaabo kala duwan loo configure gareeyo ama ma garanaysaa in loo configure gareeyo ama loo what they call maxaa la yiraahdaa configure baan u naqaanaa Soomaaliga way inuu saxabaday oo loo configure gareeyo kaas oo that has been predefined kaas oo ma garanaysaa in loogu talagalay ama ma garanaysaa in loo midalan loogu talagalay oo wadada mar la yiri moogtay undivided oo ana la qaybiyay for example subnetting-kii oo loo sii qaybiyay marka ay tahay size-ka ay timaado by the administrator qofkii maamulayo oo ma garanaysaa network administrator haddana ka yaani nigar dul maro mar labaad waxa weeye internet protocol-ku waa IP address-ku aydu waa internet bay u taala P duna protocol bay u taala wuxuuna ka dhex shaqeeyaa layerka saddexaad ee layer 3ga la yiraahdo OSI modelka kan kale oo TCP/IP-gana waa layerka labaad waxa uuna u shaqeeyaa waxa sababaha uu shaqeeyana yaani midalan aad iyo aad buu karti badan yahay waxa la oran karaa
inkastoo ay siska tiraahdo transportka ayaa ugu layer ahaan ugu awood badan ay tiraahdo network layerku oo yani masalan datooyinku error ka soo fiiriya magaranaysa transportku oo layerka had iyo jeer magaranaysa afraada يعني مثلا layer ka afraad ay yiraahdaan kaas ugu wanaagsan hadana internet layerku waa easy ma aha waa IP address ka kii adduunka uu kala gudbinayo weey marka IP address kana waa mechanism ama waa shay in computer markuu data diro qaada oo magaranaysa isaga oo sito iyo todobadii layer aan idin soo sheegay hore aan soo sheegnay ama afartii layer ee TCP/IP markaan joognay ayuu dhex marayaa kii kale physical layer kii halka markuu ka sii galo kii kale halka physical layer kii iyo data todobadii layer ama afartii layer TCP/IP gu maraya marka had iyo jeer hadii uuna computer ku lahayn wax la yiraahdo IP address in haba yaraatay meel ma gaadhayo waana sababaha loo leeyahay yani uu karti badan yahay hadii aad fahamtaan hadii uu computer data diro ama uu diro xog af Soomaaliga hadda ku macneeyno xog uu diro in meel ma gaarayso xogtaasi ama datadaasi hadii ayna lahayn IP address balse meel loo qaar lama garanayo halka ugu horeysa ku burburaysa meel ba ma gaarayso connectivity ba ma laha marka IP address ku sidaas ayuu ma aragtay uga dhex shaqeeyaa layer 3 imika aan waxaan arkaynaa waxaan ni sheegay inuu ka dhex shaqeeyo IP address waxaan la guraaday layer kaas network layer ka ama internet layer ka marka TCP/IP ga la joogo internet layer marka OSI model ka la joogana waa network layer okay bal hadaba definition kiisa waxoogaa baan yar qeexayna hadii ilaahayna marka definition of IP address definition kiisu hadaba waxa weeye IP address ka IP addresses IP address yadu are normally expressed waxa inta badan lagu yani mesela lagu qeexaa in a dotted decimal format numbers in ay wax la yiraahdo decimal format numbers oo dhibco loo dhaxaysiiyay iya lagu qeexaa waxa lagu qeexaa inay yihiin decimal ama xuruuf ay magaranaysa dhibco u dhaxeeyaan oo magaranaysa dotted waa dhibicdii decimal format numbers waa xuruuf dhibco loo dhaxaysiiyay iya lagu qiyaasaa iyo yani mesela lagu qeexaa marka la qeexayo waxa kale uu yahay waa 12 bits waxa la yiraahdo magaranaysa binary ga lagu yiraahdo binary da waa 1 iyo 0 waan arki doonaa hadii ilaahay yiraahdo xagga dambe cashirka ayay kaga jirtaa 1 iyo 0 gaas waa wixii computerku ku shaqeeyo decimal kuna waa waxaan inagu ku shaqeeyno inagu ku yani mesela aan ku fahmi karno wixii marka decimalkana waan arki doonaa binary ga computerka fahmo waa 1 iyo 0 decimal oo waa 32 bit ayuu yahay 32 bits ayuu yahay marka binary lagu bedelo laakiin decimal maxaa loo soo saaray decimal waxa soo bili aadamku in ay ku computer amin yani network ay ku kala qaybshaan hadda 10101010 un tahay qofkii macno weyn uma sameynayso marka saas baa muhiimada ka dambeysay decimalka ay tahay waxay isticmaashaa marka ka saddexaad ka afraad bal fiiri it uses wuxuu isticmaalaa IP address ku what is called octet wax octet la yiraahdo ayuu leeyahay octet ku waan arki doonaa waa god tusaale ahaan 4 digit ayaa loo kala qaybin doonaa 4 digit halkii digit ba dhibicda oo dad buu yeelan doonaa dadkaasi waxa weeyaan intaas octet la isku odhanaya waan arki doonaa soo socota idaas waxa kale uu leeyahay classes ayuu kala leeyahay IP address kaas such as sida class A class P class C class D class E sorry ayuu leeyahay taasan ka tuuray etc class ayuu leeyahay each class kastaana ama A ahaado ama B ahaado ama C ahaado contains waxa ku jira network addresses waxa la yiraahdo network addresses ayaa ku jira and host addresses iyo address oo host ayaa ku jira okay host address hadaba addresska host addresses ku uniquely identifies waxay si gaar ah u tilmaamaan device-yada sida oo kala ah computer switch printer router iyo wixii la mid ah
marka IP address hadii aad aragtid host address macnaheedu waxa weeye computer baa la gelin karaa oo ku shaqeyn kara printer baa ku shaqeyn kara switch baa ku shaqeyn kara repeater baa ku shaqeyn kara iyo wixii la mid ah ayaa ku shaqeyn kara laakiin network address ku identifies wuxuu cadeeyaa isaguna oo qeexa the network that the host address belongs to network hadaba address kani uu leeyahay buu qeexa marka macnaheedu waa maxay IP address kan hadii una subnet mask lahayn meel ma gaariyo wax jira ma aha subnet marka IP address kan waxa wadada uu xaarayo oo ku tiirsan yahay oo cadeynayo oo la aanu iga tiirsan yahay waa network address ka waan arki doonaa hadii la helayo ila socda halka hada okay IP classes magaraysa IP address classes IP address ku half waxay leeyihiin classification number u kala gaaray leeyihiin mid walba isticmaalana walba number aw isticmaala ayuu leeyahay waa ka tusaale ahaan koob aan ka soo qaanay class A waxay ka bilaabantaa 1 ilaa 126 class B waxay ka bilaabantaa 128 ilaa 191 class C 192 ilaa 223 class D 224 ilaa 229 class E 240 ilaa 255 shanta class saas horta u kala baxaan oo la yiraahdo wax IP la yiraahdo ka UP wax IP la yiraahdo shanta class ee ka timiday wasaas ay u kala baxaan okay haddaba the numberka that is missing between class A and class B which is 127 is for loopback testing haddaba halkan fiiriya waxaan idhi class A du waa 1 ilaa 126 halkana 128 ma ka bilownay halkaas waa lambarka u maqan lambar 120 iyo 7 ayaa labada nadwig dhexdooda ka maqan marka numberka 127 oo kan ah waxa loogu tala galay in maaragtay lagu eego wax la loopback testing waxa weeye waa Microsoft network card computer ka ayaa lagu eegaa inuu shaqeynayo iyo inuuna shaqeynin okay class D hadaba class ko iyo class D class E labada class are not used in a network kuwaas network ma aho inagu ma isticmaalo oo ma isticmaalaan ma garanaysaa in yani subnet network ahaan loo ma isticmaalo they are designed waxa loogu tala galay for a particular purposes ujeedooyin gaar ah ayay ugu tala galeen Cisco ujeedo gaar ah ayay ugu tala galeen okay class D waxa loogu tala galay for multicasting in la yiraahdo in lagu isticmaalo waxa yiraahdaa multicasting purposes way ku tijaabiyaan magaranaysa wax multicasting la yiraahdo hadii la yiraahdo kulleedo marka OSPF ka gaadhno ya arki doona multicasting ka laakiin magaranaysa OSPF protocol ka markaan xagga hore gaadhno weey hadii la laakiin iyagu waxay u isticmaalaan class D for multicasting iyo u isticmaalaan jeeda in class E dana waxay u isticmaalaan experimental purposes ama waxa experiment purposes tijaabooyin ay u isticmaalaan for testing oo isticmaalaan ida dana multicasting oo isticmaalaan oo want to group iyo wixii la mid classes hadaba we have to use classyada inaan isticmaalo inaga ay tahay as our network classyada inaan isticmaalo ay tahay ee in khuseeya inaan isticmaalo ay tahay waa class A B iyo C oo on soo aragnay waxay kala haystaan class A waa 100 ilaa 126 class B waa 128 ilaa 199 class C na waa 129 ilaa 223 inta aad arkaysaan intaas inaga ina khusaysa labadaas inama khusayaan laakiin marka la dhigayo waa lagu soo daraasi ay ardaydu u fahmaan hadhow waa sidii xaq marka class A waa kaas class B na class A waan isticmaalaynaa class B na waan isticmaalaynaa class C na waan isticmaalaynaa hadii la yiraahdo laakiin D iyo E shaqo kuma leeyihiin tusaalahan hadaba and the dotted decimal number ki aan dusha kaga soo hadlaynaa war waxa weeyaan dotted decimal iyo IP addressada dotted decimal ba loo yaqaanaa ma garanaysaa in IP address ku waa kan for example IP address kan ah 192 dot hadba dot ma arkaysan inta dot u dhaxayso octet ba la yiraahdaa octet ayaa la yiraahdaa waa inay soo socdaa waan eegi doonaa
midki mid u dhibican u dhaxdhaxeeyo mid walba octet bay tilmaamaysaa marka halkii xaraf ama afar xaraf ahaada ama hal xaraf ahaade octet baa la yiraahdaa inta yar 8 bit buu noqon doonaa binary ga dhowto markaan galno 8 bit ayuu noqon doonaa marka waana dhibicda markaad aragtaan waa octet marka inka IP address kasta afar octet ayuu ka kooban yahay taas oo 32 bitkii aan ku sheegaynay binary ga waa 1 2 3 iyo 4 okay in a binary waka binary ahaan I mean in 192.167.123.132 da marka aan binary ku bedelo wuxuu isku bedelayaa ilaan waati aan idhaa waa afar meelood oo magara octet waxa la yiraahdo aan ni sheegaya waa wixii dhibic baa u dhaxaysa waa afar dhibcood ayaa loo dhaxaysiyay marka mid walba aad arkaysaan ni calaamadeeyo dhibicda halka taala inta ni calaamadeeyo waa octet inta kale ni calaamad octet baa la yiraahdaa taa kale ina octet baa la yiraahdaa taa kalena octet ayaa la yiraahdaa ay la socotaa marka mid walba octet-ka waxa u dhaxeeya dhibic labadii octet ba dhibic baa u dhaxaysa labadii kale dhibic baa u dhaxaysa labadii kale dhibic baa u dhaxaysa octet-yada ay halkii octet aad aragtayba 8 yaro bit buu 8 ama 1 ama 0 ah ayuu ka kooban yahay hadda halka ay gala socdo dhibicda inta octet-ka aad aragtayba wuxuu ka kooban yahay 8 ama 1 ah ama 0 ah oo 1 ku u yaalo uu kacsan yahay oo shaqeynaya 0guna u taalo waa off iyo yaala computer saas u fasiranaya 8 on iyo off ayuu 192 ka soo qaadanaya 168 ka 8 dhibcood oo 1 iyo 0 ah ayuu ka soo qaadanaya 123 ka sidoo kale uu ka soo qaadanaya 132 gana sidoo kale waana kuwan iyaga caadi iyaga oo bedelay ina binary waxay ku noqonaysaa 32 bit number kaay 1 ku kacsan yahay marka halkii 1 ee kacsan for example 192 qaacidadan baa halkan ku taala hoos inoogu taala aan arki doonaa hadii la yiraahdo waan ku sii socon doonaa mararka dambe qaacidadan ma ku sii socon doonaa qaacidadan ma ku sii socon doonaa hadii ilaahay yiraahdo qaacidadaas qaacidada 128/64/32/16/8/4/2/1 hadhow baan hadii la yiraahdo sii qaybin doonaa maanta waa kind of introduction yani guud ahaan bayna niga fahamsiiyay rabay waxa weeyin 32 kam bit ee afartan octet oo misideeda ah loo qaybiyay octet ka dartaan dhibicda aragtaan ba wixii ay ka xiga 8 yahay kii kale ay ka xiga 8 yahay kii kale dhibicda kale ay ka xiga 8 yahay kii kale dhibicda ay ka xiga 8 yahay waxa weeyaan halkii octet aad aragtaan ba 8 1 iyo 0 ayuu xambaarsan yahay where 1 ku uu yahay on the magaranaysa 0 guna ay yahay off ay tahay marka waa kan inta hadii aan tirino macnaheedu waxa weeyaan waa 32 oo magaranaysa in digit ama 32 bits way oo marka inagu aan configure gareynana sidana marka uu computerku isticmaalayana sidana xaraf yar ee hadaad qortid wuxuu qorayaa magaranaysa 00000 halkaas uu komeysaya ilaa iyo magaranaysa ee ku gaarsiinayo tusaale ahaan inka ay oo kale waxa u dhigantaa hadii binary ku bedel leeyahay ee horta waa inaan soo gaarno ee waa number 10 ma ogtahay number 10 wuxuu oranayaa 00000 sideedan octet buu soo bilaabayaa 000 ka ugu dambeeyaa wuxuu u dhigmaa ka saddexaad wuxuu u dhigmaa 8 daas uu tick iyo 1 ka dhigaya ka ugu dambeeyana ma garanaysaa in ka ugu dambeeya ku xigana wuxuu ka dhigayaa 1 buu ka dhigayaa marka waxa ka dhiganta 10 buu isticmaalaya marka wuxuu isleeyahay hadaa xaraf ka eeda ah tusaale ahaan xarafka eeda ah hadaan doonayo computerka wuxuu ka dhigayaa 00000 which is like 128/64/32/16 halkaas 1 ka dhigayaa hadana 0 buu ka dhigayaa hadana 1 buu ka dhigayaa hadana 0 buu ka dhigayaa marka waxa aan oran karnaa eedu waxay u dhigan tahay tusaale ahaan eedu waxay u taalaa xarafka ee hadaad qortid adiga wuxuu computerku arkayaa sida 2 4 6 8 saasuu computerku arkaya marka waa yar ridig waa yar moogtahay marka intaas marka waxa weeyeen xaraf kasta oo qorto computerku 0 iyo 1 ayuu u yaqaan marka waan sii dhaxgali doonaa binary-ga marka laakiin afartaas ma garanaysaa digit oo halka dhigay afarta octet waxay u yaalaan 8 iyo 2 ma garanaysaa in 8 2 iyo 3 kii xaraf in dusha ku soo sheegnaa nidhi waxa weeyaan wuxuu yahay IP address-ka dhanba wuxuu ka kooban yahay 2 iyo 3 aan soo ku soo nidhi marka halkan macnaheedu waa anaga nidhi it is a 32 bit
in binary waa taan soo niri moogtay marka kaasina sida weeyaan waxoogaa baan shir dulkaaga kaas moogtay si aad waxoogaa uga fahamtay haddaba this number kan might be hard to make sense of you yani inta aan sameeynaya un baan ingiriis ahaan hadda aniga ku timid in yani dadka inuuna macna u sameyn macna uma sameynayo moogtay numberkan dheer hadii loo qoro qofkii moogtay ama ma fahmayo moogtay marka this numberna waxa adkaatay inuu magaraysa inuu macna dadka u sameeyo sidaa darteed divide into 4 parts afar qaybood ayaa loo qaybiyay moogtay oo of 8 binary digit oo afartii qayboodba qayb kasto ka mid ah 8 digit ay tahay tusaale ahaan intan ma dhibca dhex dhigi doona waad arki doontaa moogtay waanigi ilaa halkii xaraf octet aad aragtaanba waa 8 1 ama magaraysa ama 0 ah marka wuxuu ku leeyahay macna ma iyadii yani way adkaatay dadka macna u sameeyay marka sidaa darteed divide it into 4 parts afar qaybood ayaa loo qaybiyay oo afarta qaybood qayb walba ay tahay 8 binary digit asideed xaraf oo binary marka these 8 bits halka 8 bit oo magaranaysa qayb walba section kaaba magaranaysa ama qayb walba 8 bit ay tahay aanan waxa loo yaqaanaa as octet ani mi sheegay as octet baa yaqaan marka halkii xabbo aad aragtaanba ay dhibic u dhaxaysayba waa octet 1 octet marka IP address kasta aad aragtaanba 4 octet buu yaalaa in hadii binary lagu turjumana laba iyo 30kii binary ee IP address ka lagu yaqaanay oo ku shaqeynaayo bana uu leeyahay because octet kii kasta waa 8 binary ah waa 8 on ama off it depends waxaad garaacid bay ku xirtaa b oo kale waan qoray karnaa moogtay yaani wax la garaacan bay ku xirantahay marka on and off ma garato computer marka hadaad Ahmed hadaad inka qortid waxbuu iska sheegayaa de oo magarasa ku salaysan binary-ga 1100 sida aan hadda eedo kale u soo macnayn marka okay so divide it into 4 parts صح marka sideedan magarasa the 8 bit section qaybtiis magarasa kasta oo magarasa in kamid ah magaranaysa in sideed qaybtii octet kasta oo sideeda digit ah waxa loo yaqaan octet tusaale ahaan IP address kan ka dusha IP address kaasi waa kan isaga oo magaranaysa in la dhibceeyay balkan la fiiri waa imsax xaraf binary waa 8 waa imsax xaraf binary waa 8 waa imsax xaraf binary waa 8 waa imsax waxa weeye marka octet kasta aragtaaniba wuxuu u yaalaa 8 bit buu yaalaa octetkiina waa halka dhibicdi ka u dhaxaysa waa octet kastaba 8 buu matala marka IP kasta aad aragtaaniba 32kii bagarasa binary-ga ahaa oo IP address ku salaysnaa ayuu magaranaysaa u taagay hadaba numberkan only makes a little more sense wuxuu kaliya macna ku sameeynaya for most uses inta badan marka aad ku bedesho the binary address into a dot decimal marka binary isagoo markaad macna aad ku bedesho isagii oo caadi ah binary aad ka qaado marna waa IP address baad binary ku soo bedelaysaa oo waa kan magaran isaga oo binary ku soo bedelayna waa kan marna binary-ga ka qaadaysaayo IP address baad ku bedelaysaa oo yani isagii IP binary baad IP address ka dhigaysaa marka uu macna ku sameeynaya the decimal numbers go separate by periods are the octets converted from the binary to decimal notation yani octet kastaba waxa magaranaysaa waxa weey marka binary-ga aad ku bedesho IP address markaas uu macna ku sameeynaya muhiimada ka dambaysa inta hadaba intan yar waxaan yani waxa kaga yar hadlaynaa waankii waxoogaa yani markuu computerku routerku au data qaadayo oo yani mesela daweeye kale ku xidhay marka TCP/IP gu wuxuu si fiican u shaqeeyaa bay ku leeyihiin the router that packet yani mesela routerku marka hadaba IP address kan ka dhex shaqeeya data loo dhiibo ma yaqaano way ku leeyihiin yani mesela garanaysa that between don't know the exact location for which of information is destined routers on interwasker information guudaan yani waxa la leeyahay routerku marka loo dhiibo IP address la warqaad isagoo IP address ahaan kuma qaado oo network-yada kagama gudbiyo wuxuu ku qaadaa as a network marka IP address-ka wuxuu ku qaadayaa network-ga uu ka tirsan yahay buu ku qaadayaa markuu network-ga uu ka tirsan yahay ku qaado for example
192.168.1.1 hadduu computerku ahaa .1.1 kuma qaadaya wuxuu ku qaadayaa routerku .1.0 as a network marka uu qaadayaa routerkii kale ku xidhnaa buu sii dhiibayaa ka kale uu sii dhiibayaa across the network ilaa iyo networkii hadduu dunida dacladeeda ah loo geeyo marka routerkii loo geeyo ma garanaysaa aw datadan lahaa marka loo geeyo kaas ayaa garanaya inuu .1 yahay iyo inuu .2 yahay marka inter waa iska information dheeraad ah moogtahay laakiin waa very useful dawaaniga ay nii sheegay buu moogtahay waa routerku ma yaqaana network ahaan buu ku qaada IP address ahaan kuma qaado datada marka uu geynayo ma garanaysaa aw nad yani mesela router kale ay ku sii xidhan inuu network u sii diibay kolku halkii destination ku ahayd routerki ku xidhnaa marka la geeyo routerkaas ayaa garanaya meesha aw ma garanaysaa lambarka uu leeyahay computerka loo geynayo datada ama ma garanaysaa switchka hostigaasi adigu wuxuu doonay marka ha noqdo hadaba for this purpose ujeedadan tani hadaba darteed for this purpose to work hadaba ujeedadan darteed IP address ku laba qaybood ayuu ka kooban yahay marka waxaan yar kala qaadana laba qaybood ama network ahaan waan qaadaynaa IP addressna waan u sheegaynaa hadii la yiraahdo because network laan IP address meel ma gaarayo IP address haduu jirina network ma jiro way isku xidhay the first part hadaba IP address ku laba qaybood ka kooban yahay qaybta hore IP address ki is used waxa loo isticmaalaa as network address ayaa loo isticmaalaa qaybta labaadina waxa loo isticmaalaa the last part la qaybta labaadna waxa loo isticmaalaa as a host address ayaa loo isticmaalaa haddii aad tusaale ahaan kan aad qaadato 192.168.1.1 intaas waa inaga network waxa laga hadlayay intaas waa inaga network laakiin 132 ga because saddexdan ay kala siida saddexdan way naga xidhan tahay waan arki doonaa marka dambe sheegi doonaa hadii ilaahay yiraahdo saddexdan way naga xidhan tahay because waa network class A da kaas oo 1 ilaa 126 ayaa networka class B dana any ka bilowda 128 ilaa iyo 190 ilaa iyo 191 waa class B marka labadana class B dana xidhan marka oo labadana free ah laakiin class C da kaas baa free saddexdan network ka noqonay sida ula kala socda class A da kaas baa inaga networka saddexda kale waa host waa lagu magacaabo oo numberka marka ma wadanay 192 ga wuxuu wadanayaa 1 ilaa iyo 126 wax ka badan ma wadan karo sidaan qaacidada ku soo aragnay class B duna 128 ilaa 199 wax ka dambeeya ma wadan karo marka numberkaasina wuxuu doonu noqon karaa isaga class A dana numberka wuxuu doonu noqon karaa whatever laakiin still ma garanaysaa saddexdaas ay noo kani marka saddexdan ay naga xidhan halka xabaaya inoo noqdo marka saas intaas intan laga wadaa okay and divide it into these two parts hadaba labadan qaybood when you get the following hadaba fiiri labadan qaybood ma garatay iyo murtidii network ku shaqeeyo muhiimadu waxa weeye IP address ka saddexda hore haduu kala sii yahay saddexda hore waa network ka ugu dambeeya host ah oo kalimaha isticmaalayo class C laakiin class A iyo class B class A da ka network saddex baa host ah class B dana sorry laba network laba host ah saha loola socdo hadii ilaahay raadmo okay always hadaba fadlan mar walba waxaad isticmaashaa qaacidadan hoosta ku qoran si aad networkaaga ma garanaysaa aw kugu fududaado shaqada kugu fududaado tan oo decimal number ah 128 64 32 16 8421 numberkan this decimal numbers ka wuxuu awood inoo siinayaa in maad aragtay aan ku turjuno IP addresskeena into binary format binary format ku turjuno also waliba is the one is waa ka give nasiyada idea fikirka meesha ay ka timiday meesha ay magarasa ay ka timiday meesha ay ka timiday 255 iyo meesha ay ka timiday 256 waan arki doonaa qaybaha soo socda iyana ku arki doonaa hadii la yiraahdo qaybta labaad oo inaad ku isticmaasho networkaaga aad ay wanaagsan tahayna we will see okay waa tan halkii sare ka timiday marka waan arki doonaa yaani sida qaybaha soo socda ayaan ku eegi doonaa marka qaybtan kale oo iyaduna very value ga aad ka muhiimka waa xisaabta la yiraahdo 2 to the power 2 minus 2 loo yaqaano mathska loo xisaabta nooca loo yaqaano way it is absolutely makes your job easier shaqadana aad bay kugu sahlaysaa mar hadaad fahamto network isma dhibaysan hadii ilaahay yiraahdo
marka waxaan mar labaad idin leeyahay aad iyo aad baad u mahadsantihiin asxaabta qiimaha iyo qadarinta mudanow daawashada aad daawanaysaan indaniyow waxaad kusoo qorteen haddii ilaahay yidhahdo bal feedbackna kusoo qoro oo saad u arkaysaan kusoo qoro say waxay nila yihiin haddii ilaa yidhahdo wixii aad ka maqan oon hagaajin karnana waan hagaajinaynaa wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh